kadib markii xisbiga mucaaradka ee wadani ay maalintii shalay shaaca ka qaadeen inay hakiyeen ololahoodii ku wajahnaa kaambeenka doorashada oo ay ku bedeli doonaan taakulaynta dadka tabaalaysan ayaa mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Sanaag deeq xoolo ah waxay u qaybiyeen dadka danyarta ah ee ku nool gudaha magaalada Cergabo waxaana munaasabadii deeqda qaybintaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Daaday iyo gudoomiyaha kaambeenka xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Maxamuud Cawad Hirdi iyo maayarka degmada Cergabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo Cabdilaahi Axmed Daamur oo kamid ah mas'uuliyiinta heer qaran ee xisbiga wadani waciilka afweyni waxaanu isugu nimi madan aanu ku qaybinayno insha Allah oo maanta waxaanu ugu talagalay maalin samafalkaasi wuxuu ka kooban yahay sidaad arki doontaan xoolaha ariga iyo looda waxaanu ugu talagalay dhul gaara iyo dadka jilicsan ee magaalada wixii ay ka gaari karto ayaanu ugu talagalay arintaasi waxaanu ugu talagalay agoomaha Cergabo degmada Cergabo waxaan ugu talagalay jeelka Cergabo waxaan ugu talagalay labada dhakhtarka TBda iyo dhakhtarka kale waxaan ugu talagalay caydaha intaas oo qaybood iyo dadka wixii jilicsan ee aanu markaa u aragno inay baahidoodu ay u baahan yihiin jilicsan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu wax la qaybsano dadka masaakiinta ee ku nool degmada Cergabo maanta oo xisbiga uu ku baaqay guud ahaan in maalintii soo baxa iyo soo bandhigida taageerayaasha aan ku bedelay maalin samafal sida gudoomiyaha gobolka uu sheegay waxa arintan aanu ka fulinaynaa meelihii runtii muhiimka ah waxa kamid ah labada cusbitaalka TBda iyo waarka caadiga ah ee dadka bukaan socodka ay jiifaan sidoo kale iyo dad badan oo barakacayaal magaalada ku nool waxa jira iyaguna shakhsiyaad fara badan oo ah dadka danyarta ah waanu guddoonsiin doono xoolahan qayb ka mid ah sidaa darteed waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay inay arrintaas suurto gashay inay qurux badan tahay inay tahay mid loo baahan yahay oo ah in dadka lala qaybsado baahida jirta arrinta samafalka xisbigu ugu soo raacay dadka ama kuwa xiran ama kuwa buka ama kuwa baahan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa leeyahay miisaanka xasanaadka lagu daro tallaabadanina waa tallaabo ka wacan tii loo soo banbaxayay tan ay kala qaadaysan aad baan mahadsantihiin runtii fikirkan uu keenay musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo lagu yaqaano nin naxariis iyo kalgacal dadkiisa u hayaa waa fikir dugaba aanu aragnay midhihiisii dadku waxay cunaan iyo waxay cabaan bay maanta u baahan yihiin waayo kulmiya ka laastay waxay haysteen oo dhan waa lagu reereeyay oo goobaha la sheegay TBda dhakhtarka TBda gaajo badan baa taalla waarka kale gaajo badan baa taalla dadka jeelka ku xiran way u baahan yihiin barakacayaasha iyo agoomuhuna sidaas kale ugu baahan yihiin maanta maalin samafal weeye uu go'aansaday xisbigu go'aankan wuxuu ka yimi codsi ka yimi culimada diinta iyo waxgaradka dalku inuu nasto maanta waayo wadani ayaa ugu baaxad weyn xisbiyada ordaya haddii uu wadani maalintiisa nasasho galo dalku wada nasanaya waanu aqbalnay waanu qaadanay codsigoodii laba cashaanu u diyaarinay inaanu samafal ka qayb qaadano maanta waa maalinta soo socotana sida la sheegay ciidamada qaranka ayaanu ku caawin doonaa wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo soo dhiibay xisbiga wuxuu ku calaamadaysan yahay samafalka ومحمود محمد حسن صراف warbaahinta qaranka Soomaaliland Cergabo.